guddida loo xilsaaray qabanqaabada xafladda caleemasaarka garaad cabdirasaaq garaad soofe ayaa saaka subaxii booqday goobta ay ku sugan yihiin xoolaha tiraha badan ee lagu talagalay in lagu qalo xafladda caleemasaarka garaad cabdirasaaq garaad soofe waxaana guddidani ay saaka booqdeen xoolahaasi oo jooga duleedka bari ee magaalada Buuhoodle islamarkaana halkaasi la isugu geeyay iyagoona ka warbixiyay tirada xoolahani iyo xilliga la qaban doono xafladda caleemasaarka garaad cabdirasaaq garaad soofe halkan waa deegaanka Turcaanood sidaad arkaysaan saxaafadda ka aragtaan iyo warbaahinta waxa jooga guddiga caleemasaarka gobolka Cayn garaad cabdirasaaq garaad soofe waxa halkan ku xareysan meediyo ka muuqdaan wax xoolihii garaadka loogu talagalay sidaas awgeed baan u nimid waxa ka warbixin doona guddida dhaqaalaha guddida caleemasaarka garaadka uqaasha iyo culimada codka koobad waxa sidoo sheekh Ismaaciil Muuse ilaahay subxaanahu wa ta'aala haduusan nicamkan inoo suurta gelin waxba isuma keen qabteen xooluhuna quruxda ma yeesheen xoolahana la isuma keeneen nicmo aan la tirin karin dhinacyadeeda marka la fiiriyo ba ilaahay inoo nicmeeyay ilaah baa ku mahadsan inta ka bacdi haddii aan hadal ku daro munaasabadani aynu isugu nimi saaka Turcaanood waxaynu dhex joognaa xoolihii loogu talagalay caleemasaarka garaad cabdirasaaq garaad soofe madashaas oo dhawaan dhici doonta deegaanka ku magacaaban Turcaanood oo aanu dhex taaganahay xoolaha caleemasaarka garaadka garaad cabdirasaaq garaad soofe maxamed xooluhu tiradooda geelo 105 baanu hadda dhex taaganahay waana socdaa ariga 1042 neef baanu dhex taaganahay hadda waana socdaan insha Allah kulay way iska soo xaroon doonaan waxa weeyaan hadal badan hadda halkan kama jiro waxa weeye tirakoobka xoolaha baan warbixintooda bixinayaa geeli waan raaciyay waxa weeye 105 iyo 1042 neef oo ariya tirakoobka xoolaha nooma xadidna wali wuu socdaa waa madashii loogu talagalay caleemasaarka garaad cabdirasaaq garaad soofe duraan ee beesha Axmed Garaad haddii aan xuso 2 qodobna wuxuu ku saabsan yahay qurba joogta beesha Axmed Garaad qodobna wuxuu ku saabsan yahay dhinaca siyaasadda qodob wuxuu ku saabsan yahay qurba joogta beesha Axmed Garaad waad arkayseen xoolihii la isu keenay oo insha Allah tacaala waad daawan doontaan wuxuu yiri Allah ya raxmay Ismaaciil mire adeerkeen warka tuure waa lagu hayaa tan iyo iimay in xoolihii diyaar inoo yihiin waad arkayseen madashiina inay diyaar tahay oo la rogayo qoryaheedii lana dhisayo waad aragtaan waxaanu qurba joogtiina idinka codsanaynaa wixii idinka idinku maqnaa sida ugu dhaqsaha badan in loo helo qodobka intaasaan ku dhaafaya qodobka labaad waa siyaasadda rag horena way ka hadleen waxaan codsanaynaa ninkii siyaasad xambaarsani inuu gurigiisa kaga yimaado oo magaciisa saddexan hadduu imanayo oo maarmi waayo la yimaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meesha aanu taaganahay waad aragtaan waa xafladii waa meeshii lagu caleema saari lahaa garaad cabdirasaaq garaad maxamed waad aragtaan sida ay hawsha u soconayso wixii kalena inaanu dhammaystiraan u diyaarnahay ninkii danaynaya ee tixgelinaya inuu la socdo dadaalna sameeyo wixii isaga ku beegan inuu fuliyana waa loo baahan yahay waxaan kale oo u gudbayaa siyaasaddu iyadu waa sidaa laga hadlayo waxa weeye ninkii siteeba guntigiisa ha ku xidho ha ugu xidhnaato guntigiisa waxaanu
meesha ka soconaysa waxa weeye garaadnimo waa dhaqankii Soomaaliyeed weeye waxa ku darmi karaana ma salaan ka bacdi waad la socotaano gobolka Cayn degmadiisa Buuhoodle waxa si weyn uga socda qabanqaabadii caleemasaarka Garaad Cabdisaaq Garaad Soofe iyadoo maanta aan soo bandhignay xoolihii noolaa oo geel iyo ariba leh geelu tiradiisu tahay 106 walina aan soo dhamaano soconaya arigana tiradiisu tahay 1042 walina aan soo dhamaan ee soconaya haddana waxaan taaganahay madashii uu caleemasaarku ka dhici lahaa madashaas oo ah balligii Buuhoodle ee ay kula magac baxday magaalada Buuhoodle isagana waad u jeedaano dhismihii iyo qabanqaabadii ayaa si weyn uga socota dhammaan waxaan ka u jeedinaynaa dadka xafladaasi iyo munaasabadaasi sida gaar ah ay u qusayso meel kasta ay joogaan dadaalka lagu jira ninkii ka hadhay wani dhaxal adoo ka hadhay wani sharafkii iyo karaamadii ummadda ama qoyska ka hadhay inay soo degdegaan baanu baaq ugu diraynaa waxaan kale oo baaq u diraynaa baaq nabadeed dagaalada ka soo cusboonaanaya ama dhibaatooyinka ka cusboonaaday bariga Sool khaasatan magaalada Saaxdheer iyo Docmo dhibka oo soo noqnoqday oo waxyaalo badan iyo dhimasho badan yeeshay oo marar badan soo noqnoqday colaad waad ogtihiin oo wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wax guula lagama gaadho in dadka meydkiisa la isu tiriyaana wax macno ku jira ma jiro colaad shuraad nabadgelyo shuruud la'aana baanu baaq nabadeed idinku diraynaa annagoo ah waxgaradkii gobolka Cayn iyo khaasatan guddiga caleemasaarka iyo bahda saxaafadda waxaanu idinku diraynaa baaq nabadeed in Ilaahay laga cabsado dilka la joojiyo wada hadal lagu soo dabaalo arrinta annaguna insha Allah wada hadalka iyo nabadgelyadaas aanu ka qayb qaadan doonaa